kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa kooxda Al-Nassr oo kansashay heshiiska xiddiga Abubakar waana xilli ay jireen wararka la xiriirinaya in kooxda Manchester United ay doonayso in xiddigaasi ay amaah ku qaato Liverpool oo caawa lagu qasbay kulanka celisa Real Madrid oo la garaacay iyo wararka suuqa ay soo baxeen eegi doonaa muuqaalkeena inta bilaabin saaxiibayaal like Sarah sina share gareysa asxaabadan ay gaadho haday tahay markii ugu horeysay aan soo booqata fadlan rukumo oo kambaleel kana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay raaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno runtii Real Madrid iyo runtii kulmo fara badan oo Liverpool ay kamid tahay Juventus ay runtii ay caawa ciyaariyay Real Madrid ayaa caawa runtii dhulka la jiiday garoonka kooxdaasi Villarreal Real Madrid oo runtii kulankeedii labaad horyaalka La Liga la garaacayo runtii waana xilli ay hogaanka wali ay ka horeyso kooxda Barcelona inkastoo isku dhibc ahaayeen waxayna muuqataa hadii ay kulankeeda u dhiman kooxda Barcelona ay badiso in hogaanka ay 3 dhibcood oo saafiya ay ku haysan doonto inkastoo wali xidigaha kooxda Real Madrid ay qabaan in wali kulamo ay hareen oo horyaalku bilow yahay horyaalka ay qaadayaan waraysi in laga qaaday golaha kooxda Real Madrid ee koorta oo sheegay in bari wixtaala laga badin karo kooxda Barcelona oo Atletico Madrid ay qaban karto wali horyaalku dhow yahay haddana kulankii in ay galabta ciyaarisay kooxdani Real Madrid waxa ka muuqatay dal iyo runtii kooxdu runtii sida aan uga baranay aanay hayn oo kooxda Villarreal ay ka firfircoonayd kubadda inta badan ay haystay oo runtii kubadda inta badan laga maamulayay oo 2 gool oo runtii saafi laga dhaliyay oo inkastoo Benzema goolasha si dheersanayo oo 8 u marayo inkastoo uu haysto fursad ah xidiga hogaaminaya goolasha Lewandowski oo 3 kulan oo kooxda Barca ka maqnaanayo hadii uu ka faa'iideysan karo imka 8 buu soo maraya halka Lewandowski hogaaminaya uu 13 u leeyahay wakaasio 6 ayaa wali u dhaxaysa farqiga goolasha ka faa'iideysan kara baa leeyahay labada kulan ee kale oo haray oo ma soo gaari kara Lewandowski goolasha kulmada kale jiray waxa kamid ahaa Liverpool iyo Wolves oo runtii caawa foodeystaray oo runtii kulan adka oo Liverpool caawa lagu qasbay in kulankaasi dib loogu celiyo kadib markii labadani kooxood ay kala bixi waayeen oo kulanku 2-2 ku soo adkaaday inkastoo Farto ay Wolves ay diiday in kulanka guusha ay loo hayto runtii gool laga hormaray kooxda Liverpool oo daqiiqadii 25aad laga dhaliyay oo ay 2 gool kooxda Liverpool ay ugu badishay kala dhaliyeen Darwin Núñez iyo Mohamed Salah ay daqiiqadii 60aad laga keenay inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay gool laga dhaliyay Faro soo dhax gashay oo ka diiday maahane runtii Liverpool caawa iska hoyin lahayd Faro baa ugu helisay kooxda Wolves maahane xilli hore ay iska hoyin lahayd caawa inkastoo kulanka lagu qasbay Liverpool dib loogu celiyo kulankan ay labadani kooxood ee caawa ku kala bixi waayeen sidoo kale waxa leeyahay kulankii Real Madrid iyo Villarreal markii ugu horeysay taariikhda 121 sano kadib Real Madrid ee waxaan arkaynaa shaxdeeda koobaad oo aanu ku jirin wax ciyaartay sheeganaya qaranka Spain 121 sano kadib waa markii koobaad ee kooxda Real Madrid ay ku ciyaarayso shaxdeeda koobaad iyadoo ku jirin xiddi ku dhashay Spain wana horyaalka laga ciyaaraya iyo wali horyaalka ay ka tirsantahay iyo dalka ay ka tirsantahay Real Madrid oo laga waayay shaxdeeda koobaad xiddig ka tirsan oo dhashay Isbaanishka waxaana ugu dambeysay saasi dhacdo 121 sano ka hor waa taasi markalna saas ay dhacayeen kastoo kulanka 2-1 loo garaacay kooxda Real Madrid sidoo kale isku aad kala sameeyay kubadda Riga waxa runtii mar kale isku dhacay in labada kooxood ee caawada ciyaaray Real Madrid iyo Villarreal oo runtii maanta ay Villarreal ay Real Madrid ay garaacday fursad bay haystaa ay guushaasi ay muddo waliba kooban ay ka aarsan karto kooxda Real Madrid ay garoonka Villarreal ay kooxdu ay la jiiday Real Madrid oo 2 gool iyo 1 laga soo adkaaday kubadda Rigana waa isku dhaceen Real Madrid waxay haysataa fursad ay ka aarsan karto gool daradaasi ay maanta ay wax xambaarisay kooxdani Villarreal Juventus ayaduna waxay badinaysaa kulankeedii 8aad oo xiriira horyaalka Serie A
waxaana ay soo gashay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka. runtii bilowgii horyaalka qaabka ku bilaabatay Juventus ma fiicnayd, imika waa soo kacday, horyaalkii waa soo runtii kacday oo waxaabay imika maraysaa kaalinta labaad. 8 kulan oo xiriir ah oo horyaalka Serie A Juventus waa badisay, runtii gadaal waa iska soo canaanato wataas duuto meel fiican bay maraysaa kaalinta labaad ay ku jirtaa. welina horyaalku waa bilow, inay ku guuleysan karto waa macquul, inkastoo Napoli sanadkani ay kacsan tahay. kulamada runtii kusoo aadan labada kooxood ee sanadkani horyaalka Premier League isku haya oo Arsenal iyo Manchester City oo farqi 5 dhibcood u dhaxeeyo, halka 44 ay kooxda Arsenal ay leedahay, halka 39 ay leedahay Manchester City. runtii laba kulan oo laba kooxood oo isku mid ah oo u soo kala horeeya maahane ay la kala leeyihiin loo kala saari doono maalmaha soo socda. Arsenal waxay la ciyaari doontaa Tottenham oo ay ugu xigto United, halka Manchester City ay la ciyaari doonto United ugu xigto Tottenham. labadan kooxood midkood la qabto ama midkood labadan tuma wali waa si dheeraysan doona, ama kulamadani waxa ay isbedel weyn ay ka dhalin doonaan kala sareynta horyaalka, ama waxay la dhaadhici karaan Manchester City oo ka samir karto horyaalka, ama Arsenal oo xilli hore isku soo dhiibi karta. labadaasi kulan oo la garaaca waxay ka dhigan tahay iyo labadaasi kulan oo Manchester City ay badisaa waxay ka dhigan tahay Arsenal oo gaanka hal dhibic laga hayo. runtii dhawaan wax kasta isbedeli karana waa macquul. kooxda reer Sacuudi ee Al Nassr waxay kansashay qandaraaska uu kula jiray xidigeeda Abubakar say boos ay ugu helaan Cristiano Ronaldo oo kamid ah ciyaartoyda runtii ajnabiga ee ku soo biiray kooxda, say ugu helaan Abubakar oo la filayo inuu ka mid noqdo xidigaha safka hore kula soo midoobi kara Cristiano Ronaldo. intii waa la kansalay, waxaana jira suurtagalka ah in Manchester United ay qaadan karto laacibkan, inkastoo warar soo baxay sheegeen Abubakar ay doonaysay in hal sano ama ay kala soo saxato Al Nassr. imka xidigani dibadda ugu jooga, kooxdu doono ayuu heshiis la gaari karaa. Manchester United waana macquul inay qaadan karto weeryahanka cidladu yaala kana mid ah weeryahanadii ay doonaysay ama haba ku rabtay, imka dibadda ugu jooga waa soo qaadan kartaa waqtiga doontana waa u saxiixi kartaa inay qaadan karto Manchester United. laacibkan sare ayuu sii kacay kadib markii heshiiskiisii ay kasashay kooxdiisa kula jiray reer Sacuudi Al Nassr sabab la xiriir Cristiano Ronaldo oo ay doonayaan si ay u diiwaan geliyaan laacibkaasi. Ronaldo waxa uu kamid yahay xidiga ajnabiga ee kooxda ku sugan, Abubakar oo ajnabi kamid yahay. si Cristiano u saxan Abubakar ay runtii ka takhaluseen. Manchester United iyaduna si amaah waxay ugu soo wareegtay war rasmi ah oo la xaqiijiyay xidiga reer Burnley ee runtii u dhashay qaranka Holland ee Netherlands ee Weghorst. laacibkan waxaan ku xasuusanaa kuna geystayda ee Argentina iyo Netherlands ay foodistareen runtii Netherlands labada gool lagu hormaray, xidiga labada goolba keenay ee rajada dhimatay soo nooleeyay ee daqiiqadii ugu dambeysay. waxaan oran karnaa xitaa la sikino ay dhaaftay waqtigii lagu daray goolka barbaraha keenay niyada jamaahiirta Netherlands soo nooleeyay ay Manchester United la seexatay. warkaasi ay runtii soo baxay United laacibkaasi ay la seexatay. tobraha Faransiiska ee Didier Deschamps isaguna qandaraas ku kordhiyay qarankiisa France ilaa iyo June 2026. ugu dambeyn heshiis ba la gaareen kadib markii ninkan labadii sano ugu dambeeyay marna uu koobka adduunka uu gacanta u galiyay, marna finalkii waa bila dhacsan yihiin sida uu ugu wacdareynayo runtii uu qarankan meelaha fiican ee meelaha ugu sarreeya kubadda cagta uu keenayo, inkastoo farcidood uu ka baxsaday in markii labaad xilda uu qaadana runtii rikoor laga qaaday. waxa heshiis kale oo waqti dheer ah ay gacanta u galiyeen oo maamuli karo Euro 2024 iyo World Cup 2026 lagu qabanayo Canada, Mexico iyo waliba USA. saddexdaasi wadan ay wada martigelin doonaan oo daadihin doono. haddaba waxa muran laga dhex dhalinayaa runtii rajadii ahayd in Zidane uu qaban karo oo doonayay runtii inuu qabto xulkiisa Faransiiska. waxaa leeyahay waqtigaasi dheer ee loogu daray tababare Didier Deschamps in qaranka Faransiisku si hogaamiyo wax ma ka bedeli doontaa rajadiisa ahayd
in Zidane uu qarankani uu tababaro ku noqdo muddadaas dheer ma sii karo. Waxaa leeyahay dib ma ugu soo laaban karaa xirfadiisa tababarnimo oo runtii kooxa ma qaban karaa, inkastoo kooxda aadka loo xidhnaya ahayd kooxda Juventus, inkastoo kor u weyn ay samaysay. Haddana waxaa leeyahay sanadii Zidane dib ugu soo laaban karaa, inkastoo ay jireen isku dhacyo finalkii mararkii finalka uu sugayay Faransiiska jiray oo runtii xitaa la martiqaad loo fidiyay Zidane uu diiday in xitaa la u yimaado isqabsiyaas inkastoo ay jiraan. Haddana waxaa leeyahay Zidane xirfadiisa kooxeed ayuu dib ugu soo laaban doonaa. Rajadiisa in France uu ka noqdo tababarna waa kaasi 2026. heshiiskaasi dhan ayaa farta laga saaray Didier Deschamps tababaraha qarankani Faransiiska. Tababaraha xulka Argentine Lionel Scaloni ayaa waxaa runtii maamusay oo maamus sharafeed kusoo dhaweysay kooxdiisa, runtii kooxda Real Morocco oo hore ugu ciyaari jiray oo runtii maamus u sameeyay kadib markii laacibkoodana hore uu ku guuleystay koobka adduunka, isagoo waliba tababaraha uu gacanta u geliyay qarankiisa Argentine. Waxaa leeyahay Garnacho waa taageero dhab ah Cristiano Ronaldo kadib markii la arkay isagoo ku ciyaaraya nigis ay ku xardhan tahay CR7. wiilkan yari waa taageero dhab ah oo Cristiano Ronaldo ah. Runtii xitaa la wiilkan yari waxa fursad u haystay in isagoo da'yar uu koob adduun in runtii uu qaato haddii lagu wici lahaa qarankiisa Argentine. Arrimaha dhaafiyay waxay ahaayeen isagoo oo qarankiisa uu ka dhashay Lionel Messi in Cristiano Ronaldo runtii uu taageero noqdo oo fagaara waaweyn uu ka hadlo in laacibka adduun uu yahay. Maxaa amuurahaasi geliyay? Waxa fursad u haystay in koob adduunka uu qaado. Imika waxay muuqataa in fursado kale uu sii dhaafinayo isagoo Argentine u dhashay. Maxaa Ronaldo badahaasi wiilka yar geliyay? Imika waxaa leeyahay waa taageeraha dhabta ee Cristiano Ronaldo isagoo nigis hoosa oo CR7 ku sawiran ayaa la arkay. waana sababta keenaysa in ninkan uu yahay taageeraha dhabta ee Cristiano Ronaldo oo weli ninkan uu yahay hormuudkiisa koobaad CR7. idan Hazard ayaa waxaa leeyahay waxaa suurtagal ah in Cristiano Ronaldo uu kula biiri karo kooxda Al Nassr iyadoo kooxda Sacuudiga ay sii wado mashruuca ay ku doonayso in magacyo waaweyn ay ku soo kordhiso kooxda simay qaabka kooxda iyo waliba taageero fara badan. inkastoo imika kor kooxda Al Nassr ay soo kacday oo kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ay hadeer bay ka taageero badan oo ay ka saameyn badan tahay. haddana waxaa rabtaa magacyo waaweyn oo saameyn ku soo kordhinayo in ay sii wado kooxda Al Nassr ay soo kordhiso. wararkeena ciyaaruhu waa naga taas saaxiibayaal, intaynu ku kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.